الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين أصحاب تملك استأدونك أكجوكتين سو دواذا فائز زوال ما انتو حانو سو دياري بسكوت كي عيد أو آد وفضت ما شاء الله آدنا وقروح بدن بسكوت حواي أصحابته أو آد وفضت قعنتي إذا أنكو سميناي أو مكينة أو باهنين waxaan ku sameynaya waxyaabo iska basiid ah oo guriyeen aan ka helayno videogan waxaan rabaa insha Allah inaan idin ku tusiyo biscuit gacanta aan ku sameynayo oo aad u fudud aadna u sahlan yani adoo makiina aad isticmaalin gacantaada la ku sameysan kartid biscuit qurux badan marka soo dhawaada asxaabteed qaaliga insha Allah waxaan rajeynayaa dhamaantiin inaad ka wada heli doontiin meeshaan waxaan ku soo diyaarsaday alaabta oo raba inaan biscuitka aan ka sameeyo baaquliga marka hore waxaan ku soo shubanayaa 3 xabo oo ukun ah 3 xabo oo ukun bas lee u baahanahay حكى لو كدرايا فانيلا ان فانيلا ده لازم in lagu bilaabo waa asxaabta markay ukunta lagu shubo la in ukunta waxay leedahay riixad yar ay leedahay markay ukunta koow ku shubtid waxa fiican vanilada in lagu xijiyo علشان vanilada waxay siinaysaa caraf fiican ay siinaysaa ama carfisada hadda waxa ku diraaya bakeeri iyo rubac sokor sokortana waxa way sokor aan soo shiiday oo si fiican u soo shiiday sokorta shiidan waxa way asxaabta waxay ka saacidaysaa in markay ukunta iyo saliidda iyo sokorta shiidan la isku qaso in ciyoob ay qasanto oo cream ay noqoto burkan si fiican oo isku qabsanaya ma sha Allah hadhowtina markay aad sameynaysid yani si fudeed ah marka jajabay burka haddana waxa ku diraaya bakeeri saliid ah markay intaana si fiican isku qasaaya si fiican isku dhexgelinaya markay oo cream oo noqdo si fiican isku qasmo kadib aan ku darsanaya burka insha Allah burkana waa kana asxaabta waxa ku diraaya 3 bakeeri oo bur ah marka hore nuskana gadaal aan ugu diraaya markaan isku qaso gadaal markaas aan ku cajiimaya nuska oo soo har insha Allah waxa kale ku diraaya wax yar oo cusbo ah iyo baking powder kan waxaan ka qaadanaya oo ka isticmaalaya qaadada yarta ah haddana si fiican isku qasaaya si fiican oo cajiimaya nuska marka oo gadaal ugu diray waxa waa fiirinaya nuska hadii markino oo nuska u baahan yahay iyo hadii soo u qasmi ku xiran tahay marka waa qasaaya waa fiirinaya marka nuska ama waa ku wada diraya hadii u baahan yahay hadii u baahneen wixii ka soo haro aan arkaya insha Allah waa ka soo hadda cajiinka saas uu igu qasan yahay nuska aad wax yar oo beena ka soo haray marka hadda bas way cajiinka saas oo diyaar noogu yahay haddana waxaan soo diyaarsanayaa saxanka aan rabo inaan biscuitka aan ku safto oo rabo inaan foornada aan la geliyo marka hore laakiin waxaan marsanayaa saliid marka hore laazim saliid inaan mariyo waaye la inno saliid la'aan waxa waa biscuitka ku dhigaya waa qabsanaya marka hore saliida si fiican u marinaya kadib biscuitka aan saaranaya aan ku safaya insha Allah waa kana asxaabta marka hore burkan soo kuusay kuskuusan ka dhigaya marka hore gacan leen ku sameynaya iyo waxa la dhahay alaabo yar oo jikada noo taale aan ku sameynaya sida qaada iyo caag yar oo caag oo fataayirka iyo cajiinaadka yani macjinaadka lagu sameeyo kuwaas loo isticmaalaya insha Allah waxa way biscuit aad u fudud oo gacanta leh aan ku sameynayo aadna u qurux badan ma sha Allah marka hore saan u soo wada kuusaya marka laba qayb aan u sameynaya laba qayb aan isku ekeysiinaya aan u qurxinaya qaybtaan inta waxa way marka hore bakeeri aan ku riixaya ama gacantaada xataa ku riixi kartaa عاجنا مركو استعمالها ساسا مركا أقولي ريحايا ست ترتيب أساس أقول ريحايا مركو حويلنا نخشد آد وقروح بدنا ويالنا هدي أردت عاجن أهي سنين قاعدة واستعمال كرتا مركا ساس لي أقولي ريحايا مركا سوحوك صبحايا نخشد أو قرحنا وما شاء الله إيه ساس لي أقول ريحيسا قاعدة نسيدو كلا ساس لي أقول ريحيسا مركا قاعدة إيذاني وحدي بدل ما آد وفدود يهي marka laba qayb isku ekeysiinaya qaybtan waxa way caagan ku sameeyna qaybta kale iyadana waxa way waxa u sameeynaa nooc kale u sameeynaa insha Allah qaybta kalena waa tan asxaabta waxa ku sameeynaya birta doorshada oo lagu shiido oo lagu qaso iyadana aad u fududahay saas leen ugu riixaya labada dhinac marka aan ugu riixaya mar dhinacana ugu riixaya marna dhinaca kale ugu wareejina ugu riixaya marka asna waxa ku soo baxaya fiyoor qurux badan oo ku soo baxa ما شاء الله وكاسا ما شاء الله يعني ما بلو باهنا بماكينو ماكينة مركز دي اي كو اولين سان عملوا استعمال كرتا اد وفدودي هاي
qaybta saddexaad iyadana waxaan u sameynayaa farta leen ku riixayaa qaybta saddexaad saasaan farta ugu riixayaa goda u yeelaya calashaan waxaan rabaa hadhowti inaan malmalaadan dhexda aan ka geliyo qaybta saddexaad iyadana saas waaye iyadana aad u fududahay maasha allah saasaan kusoo wadayaa iyadana burkan waxaa asxaabta waxaan kasoo qaatay burka kale yacni gabal yaraan kasoo goostay marka waxaan kusoo qasay hal qaado oo shukulaato ah qaadada yar oo shukulaato aan kusoo qastay calashaan waxaan rabaa hadda inaan sameeyo qayb oo shukulaato ah iyo qayb kale oo cad ah aan rabaa inaan isku daro haddana waxaan sameynayaa qayb kale oo fiyoore camal aan u sameynayo marka waxaan isku dirayaa labada bur mid kan shukulaatada iyo kan kale cadka isku dirayaa marka waxaan ka sameynayaa fiyoore yar oo qurux badan marka hore waa kuuskuusaya waxaan ka dhigayaa kuuskuus yaraan ka dhigayaa kadibna waa isku dhajinayaa maasha allah wuxuu kusoo baxayaa fiyoore aad u qurux badan waxaa kaloo saas aan ugu sasarayaa waxa waaye qaado yar waaye saas isku dhajinaa kadibna waxa way qaadayna saas ugu riixaya ma sha Allah fiyoor wuxuu kusoo baxaya aad u qurux badan ma sha Allah qaybtan waa taasa saasan qaadada ugu soo wadaaya dhinacyada saas ugu sasraaya dhexdan waxa uu sameeynaya dhibcooyin yar u sameeynaya ma sha Allah fiyoor wuxuu kusoo baxaya kaal iska arag ma sha Allah asxaabta waa kana markii aan soo dhameeyay saan kusoo baxay quruxda soo kusoo baxay makiina ma loo baahnaba gacantaada saarto oo isticmaal kartaa saarto ugu quruxsan kartaa kaal iska argo kusoo baxay haddana waxaan gelinayaa foornada marka inta gelin ka hor waa sii shiday yani foornada waxa fiican marka hore inaad sii daaratid ay ku sii kulaato marka foornada waxaan ku geeyay 220 hoosaan u shiday marka hore waxa u shidayaa hoos markii buskudka hoos oo kusoo guduuto wax yar ka bacdi haddana kor u shidayaa insha Allah haddana cajiinka inta soo hartay waxaan rabaa inaan saxankan aan ku sameeyo hadda waxaan tusinayaa naqshad kale oo basiid ah iyadana oo qaadada leh aan ku sameynayo waataasa iyadana waxa waaye naqshad yar oo basiid ah oo iyadana aad u qurux badan qaadada leh saas ugu riixaysaa ma sha Allah iyadana aad u fududahay waataasa marka hore dheer u sameynaya marka dambena dhinac u sameynaya saas ugu riixaysaa ma sha Allah aad u fududahay waataas asxaabta idin qaybtan saan ku soo dhameeyay ma sha Allah quruxdaas oo noogu soo baxay khalaas way marka hadda asxaabta buskudkeen saan u diyaar noogu yahay kana waxaan rabaa inaan foornada geliyo marka hore markaas oo soo dhamaada kaas aan ka soo bixiyo kadibna kana gelinaya foornada insha Allah ka bacdina wasla arkayna insha Allah say ku soo baxaan ma sha Allah asxaabta akhiirkina waa kaas saas oo ku soo baxay ugu dambeystii wuxuu ku soo baxay buskud aad u qurux badan oo kaal iska arag loonkiisna wuxuu noqday loon oo dahabi buskuta waxa way asxaabta kan oo dhexda guduudka ka waxa way malmalaada dhexda uga soo shubay waxa way kii aniga u isticmaalay gacanta oo farta aan gud uga dhigay waaye kaas oo dhahay waxa ugu talagalay inaan malmalaada dhexda uga soo shubo marka kaas waxa way guduudka malmalaadadii way dhexda uga soo shubay soo probay idinkan asxaabta qaaliga ee soo tijaabiye insha Allah waa ka heli doontiin waa ujeedin buskud waxa way aad u fudud aadna u qurux badan gacanta leh aan ku sameeyay oo makiinana u baahnaynin harjina asxaabteed qaaliga dhamaantiin inaa ka wada hesheen oo ka faa'iideen videoga like iyo share dhaha like ta ka tagin insha Allah videoga like ta noo saara insha Allah waxaan oo balan ee videoga dambe waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh